Jenaraal Odawa oo jawaab adag siiyay Cali Dheere wacdna ku mar in la soo xiri doono ayna ku cibaadaysan doonaan ciidamada geesiyaasha oo garab ka helaya dadka deegaanka halka uu ku sugan yahay oo uu sheegay iyo sida uu u nool yahay oo bannaanka la keenay xogo muhiim ah oo laga helay iyo dabakal ku socda warbixin idin kala wadaagi doona xog muhiim ah oo ku saabsan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo bannaanka keenay xog muhiim ah oo ku saabsan dabagal lagu hayo Cali Dheere oo ah afayeenka ururka Al-Shabaab hadal dhawaan ka soo yeeray oo taliyuhu ka jawaabay iyo dagaal ka socda oo u muuqda mid ciribtir ku ah ururka Al-Shabaab sheegay warbixintan oo ku fiye dunida walba ku tawar muuqaalka qaybta faadada nagu wadaaga rabtidiina waa hagaag aan ku bilaabo kani waa kitaabka Ilaahay waa kitaab la doonayo qof kasto oo muslima inuu barto waa kitaabka cadeynaya booska aad ka dagayso jannada hadii baad guuleysato in kastood ka xifdsan tahay ayaa ku egtahay gurigaaga siday axaadiista rasuulku ay sheegeen hadaba ma jaanis ma u weyday inaad barato quraanka kariimka ma ka cabanaysaa inaad labada gelinba aad shaqayso waxaan ku hayaa maxadka tartiilul quraan online waa dugsi lagu talagalay qof kasto mashquul ah inuu waqtigiisa siiyo isla markaana uu hab online ku barto quraanka kariimka waalid weynaha qurbaa ku nool waalid ka faa'iideyso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka waana maxad ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiiska iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-tahiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul quraan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore u la xiriirno maxadka tartiil quraan online taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Jenaraal Odawa Yuusuf Raage ayaa wacdo ku mar in Cali Dheere dhawaan la soo qaban doono noloshana lagu gubi doono waxa uu sheegay taliyuhu inay helaan xog muhiim ah oo ku aadan meesha ay tahay halka uu ka soo hadlay ee muuqaalka looga soo duubay Cali Dheere waxa uu sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in gulufka ay ciidanka dawladda iyo shacabka iskaashanaya horkacayaan ee ka socda gobolada dalka oo hormuud u yahay gacan ku dhigida hogaamiyaasha ururka Al-Shabaab iyadoo markii ay gacanta dawladda Soomaaliya soo galaan ay arrintaasi noqon doonto mid nasr iyo guul ah shacabka Soomaaliyeed ay dhibaateyn jireen aan loo cafin doonin xuquuqdii ay shacabka galeen ee fagaaro lagu wada toogan doono iyaga oo nololna gacanta lagu soo dhigi doono sida uu sheegay taliyaha Odawa Yuusuf Raage taliyaha ayaa sheegay baaritaan ay sameeyeen ciidamada xoogga dalka inay heleen xogta meesha laga soo duubay muuqaalkii Cali Dheere baraha bulshada ku baahiyay isagoo sheegay in ciidamada Soomaaliyeed hadda ay ku gacan sareeyaan dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab ayna diyaar u yihiin inay qaadaan tallaabo kasta oo lagu soo qabanayo Cali Dheere iyo dadka asaga la midka ah ee ka tirsan ururka Al-Shabaab taliyaha ayaa sheegay meesha Cali Dheere looga duubay muuqaalka inay ahayd deegaan markaasi ku yaala gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Ceelbuur oo ah ubuucda Al-Shabaab ee gobolada dhexe wuxuu sheegay taliyaha Odawa Yuusuf Raage in Ceelbuur ay tahay meesha ugu dhow ee dhawaan la qaban doono isla markaana laga soo faramarojin doono ururka oo hadda farxad iyaga oo kala ah ku soo qulqulaya deegaanada ay ku xoogan yihiin gaar ahaan gobolka Jubbada Dhexe ay isugu ururayaan xilligan adag ee dagaalka adag ay wajahayaan dadka deegaanka oo ku dheeriday marka inay dagaalamaan qoryahana u qaatay sidii Al-Shabaab u ciribtiri lahaayeen ayaa weerar kala duwan ku haya ururka Al-Shabaab iyadoo deegaano badan oo ka tirsan Galgaduud iyo Hiiraan laga sifeeyay kooxda deegaano dhowr oo ku yaala gobolka Galgaduud ayaa Al-Shabaab lagula dagaalamay iyadoo deegaanada ugu dambeeyay ee laga saaray ay ka mid ahaayeen Islandhaqo iyo sidoo kale deegaano kale oo adag kibar baxdo iyo deegaano hoos yimaada oo dhowr iyadoo shacabka kacdoonka bilaabay ay wacdo ku mareen inaysan joojin doonin gulufkan inta ay ka xoreynayaan deegaanada ay degaan
tallaabada ay qaadeen ciidamada dowladda Soomaaliya ee al-shabaab looga xoreynayo guud ahaan dalka ayaa noqon doonta mid sii iftiimin doonta qorshaha qaran ee shacabka Soomaaliyeed ka leeyihiin inay xuquuqdooda ku difaacdaan iskagana dhiciyaan kooxdan oo u muuqata inay si toos ah markaan u banaysatay dhiigga dadka iyo dhicitaankooda. wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk Soomaaliya ayaa soo saartay warbixin ku aadan sida shacabka al-shabaab ula dagaalamayaan taageerada ay dowladdu siinaydo oo sheegtay in ay markaasi garab taagan yihiin dadka deegaanka ayna xoolo dhaqatada iyo beeraleyduba hadda u kaceen inay xuquuqdooda difaacdaan. sheegay xogaan qaybta falan gurigooda qarartii intan iyo kulantan barnaamijgeliyo. kani waa kitaabka ilaahay waa kitaab la doonayo qof kasta oo muslima inuu barto waa kitaabka cadeynaya booska aad ka degaysa jannada haddii baad guulaysato in kastood ka xifdsan tahay ayaa ay ku egtahay gurigaaga siday axaadiista rasuulku ay sheegeen. haddaba majaanis ma u weyday inaad barato qur-aanka kariimka ma ka cabanaysaa inaad labada gelinba aad shaqayso waxaan kuu hayaa maxadka tartiilul qur'aan online waa dugsi lagu talagalay qof kasta oo mashquula inuu waqtigiisa siiyo isla markaana uu hab online ku barto qur-aanka kariimka. waalidweynaha qurbaha ku nool waalid ka faa'iideyso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada islaamka waana maxad kuu furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada qur-aanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida kutubta fiqiga axaadiista iyo tafsiirka. waxaa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya ataxiyaadka salaada iyo aayad kursida. waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool. ballanteenu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil qur'aan online.